shirka warbaahinta iyo laamaha ammaanka ayaa lagu qabtay magaalada Garowe waxaa ka soo qayb galay saraakiil ka socotay laamaha ammaanka ee magaalada Garowe gudoomiyaha ururka warbaahinta Puntland ee Maabe qaar ka mid ah saxafiyiinta ka howlgala caasimadda Puntland bahda garsoorka iyo marti sharaf kale taliye ku xigeenka ciidanka dambe baarista Korneyl Cismaan Cabdi Maneen oo ka hadlay furitaanka shirka waxa uu sheegay in shirkan uu muujinayo wada shaqaynta u dhaxaysa warbaahinta iyo hay'adaha amniga garsoorka iyadoo cid kastana ay si xor ah shaqadeeda u wadato horta ma kala maarmana marmar idinku hawsha socota inaad wax ka ogaataan baaxta innagana dariiqii aan ku soo bandhigi lahayn baatiin idinkuna dariiqii aan ku soo bandhigi lahayn oo aan dadka aan canshuurtooda qaadano ilaa canshuur mushaarkeen waa canshuur adeegeen waa canshuur halkaas ka yimaada dadkii waxay rabaan dhagahooda inay wax maqlaan xagee loo marinaya waa idinka ma kala maarana marka waxaan noqonnay saaxiibo dhaba waxaan noqonnay dad wada shaqeeya waxaan noqonnay dad walaala oo xaqiiqdii isku baahan taa waxay keentay marka inaan sharciyo samaysano taa waxay keentay inaan dariiq samaysano oo nin walba wuxuu xaq u leeyahay uu yaqaano hadda guddigan ku jira anigu gudoomiyaha waa ii yimaadaa xafiisku igu yimaadaa wixii warbixina si saafi aan u siiyaa oo hufan marka taa maxay keenaysaa marka taa in la isku soo dhawaaday keenaysaa gudoomiyaha ururka warbaahinta Puntland ee Maabe Maxamed Daahir Caynsane ayaa isna muhiimadda shirkan ku sheegay in ay tahay in saxafiyiinta Puntland ay ku shaqeeyaan si xor ah haddii ay dambi geystaan lagu soo xiro hab sharciga waafaqsan shirkan sida uu idin sheegay Cabdiqani waxa uu daba joogaa laba shir oo sanadkii la soo dhaafay Maabe ay halkan ay ugu qabatay intii naas oo bulshada rayidka ay isugu jirtay iyo saxaafadda iyo maxalliga saraakiisha booliska laba jeer May labadeedii iyo saddexdeedii iyo November bilowgeedii koowdii iyo labadii shirkaasi waxa looga hadlayay sidii loo dardargelin lahaa oo loo horumarin lahaa wada shaqaynta u dhaxaysa laamaha ammaanka iyo saxaafadda ama warbaahinta Puntland sidii uga howlgali lahayd saxaafad ka madax bannaan cabsi handadaad iyo faafreeb sidoo kalena booliisku iyo laamaha ammaanku ay ku wacyi gashanaan lahaayeen awoodda maxaa la yiraahdaa marka ay fulinayaan maxaa la yiraahdaa sharciga ay ku wacyi gashanaadaan oo iska ilaaliyaan inay saxaafadda iyo warbaahinta ay u yimaadaan iyagoo aan haysan waaran maxkamadeed ama amar maxkamad ka soo baxay sanadkii hore si fiican baan u wada hadalnay qodobo wanaagsan ayaa ka soo baxay ballanqaadyo ayaa meeshii maxaa la yiraahdaa laga sameeyay saraakiishu waa inala joogtaa badankood oo ay ka mid yihiin Kismaayo iyo Cabdiwaxid afayeenka booliska halka fadhiya Bilaal Guursade sidoo kale waxaan rajaynaynaa insha Allah taala inta ay halkan joogno maanta iyo berri galinka maxaa la yiraahdaa hore inaynu bal wax iska weydiino maalintii hore waxaynu ka hadalnay wixii ka qabsoomay wixii maxaa la yiraahdaa muddadii November oo aynu shirnay iyo May oo hadda la joogo 6 bilood oo u dhaxaysay ama 7 bilood oo u dhaxaysay waxyaabihii dhacay Puntland kiisaskoodii sanadkii la soo dhaafay ayay laba kulan oo noocan oo kala ah wada qaateen labada dhinac kaasi oo looga hadlayay sidii ay wada shaqayn dhab ah u yeelan lahaayeen amal qaajo warbaahinta dawladda Garowe.